waxaana wanaagsan dhammaan khiyaartana daawanaysa meel kastood joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii falaqaynta qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid ah jamhuuriyadda somalilan oo hadda golihii wasiirada ugu markaasi tunka roona shir jaraa-id oo ay qabteen maanta ay daaha kaga rogeen cadowga jamhuuriyadda somalilan kaasi oo markaa shaaca looga qaaday in ay kow ka tahay saddexdii sannadood ee ugu dambeysay barnaamijyo aan sii daynayna oo isdaba joog ah baan idinku sheegayay taasi bay maanta wasiiradu caddeeyeen jabuuti baa kow ka ah oo markaasi cadowga somalilan ee doonaya inay burburiso oo markaasi haddii somalilan ay noolaato u haysata in ayagu dhimanayaan saa darteed inay baaba ahaato oo lagu kala tago jamhuuriyadda somalilan ayay jabuuti ka talinaysaa dagaalo hadda ay soo maleegayaan oo durtaba maanta dagaal xoogan u galabtii ka dhacay deegaanada markaasi u dhexeeya xariirad iyo markaasi ilaa iyo saylac taxan halkaasi oo xoogaga argagixisada ah ee markaasi ay jabuuti dabada ka wada ay markaasi halkaa dagaal ay ka wadeen deegaanada buuraleyda ah oo dagaal ka dhacay ayaan faahfaahin idinka haya khasaaraha halkaasi ka dhashay dhinaca kale kooxaha diinta kusoo gabanaya oo wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda somalilan uu sheegay iyaguna inay khatar weyn ku yihiin markaasi aqoonsiga jamhuuriyadda somalilan ee israa'iil ay siisay niman markaa sheegtay in culimo yihiin oo dadku ay u haysteen muslim toosa oo laga dambeyn jiray jamhuuriyadda somalilan oo hadda dhexda ugu jira lana ogaaday inay yihiin kuwa horboodaya burburinta somalilan oo markaa cadowga u shaqeeya kaasi oo fahad yaasiin ka amar qaata gunnada yare ee timirta oo markaasi uu soo dirana loogu hanjabay oo fahad yaasiin ugu hanjabay gunnadaasi ka jarayo nin weyn oo sheekh sharaf le loo haystay somalilan ayaa la ogaaday inuu fahad yaasiin timir ugu shaqeeyo oo timirtaasi laga jaraya haddii kale inuu ka hor yimaado lagu khasbay qarannimada somalilan xukuumadda somalilan oo soo saartay cid dambe sheekh walaa shariif qofkii shir jaraa-id qabta ee markaasi aqoonsiga somalilan tushuush ku fura in tallaabo adag laga qaadayo xabsiga ayaana lagu gurayaa baa layidhi niman badan oo markaasi khudbadahoogii jimcaha sii diyaarsaday oo markaa ugu talagalay inay ka hortagaan aqoonsiga somalilan ee markaasi israa'iil ay siisay oo hadda markaa loogu hanjabay haddii ay ka hor yimaadaan oo aqoonsiga somalilan tushuush ku furaan waxaa lagu yidhi birta ayaa laydin dhaafinaya liinta loo qorayaa baa layidhi sheekh walaa shariif walaa nin weyn walaa nin yar walaa nin cirale cidna lama dhaafayo ciddii aqoonsiga somalilan ee 35 sannadood ee soo socday markaasi ka hor timaada ee ka amar qaadata ee amarka laga soo siiyo ninka la yidhahdo fahad yaasiin ayaa sidoo kale wasiir khadar xuseen waxa uu sheegay inuu gacan ku dhiiglo hablo badan ku laayay muqdisho yahay haddana nin diin inoo faraya iska soo dhigayo haddaba waxaa ceeb ah raggii aynu culimmada qaarkood u haysanay oo gacan ku dhiiglahaasi xitaa hablaha ku leynaya xamar ka amar qaadanaya talow nimankaasi maxaa u dambeyn doonaa dhinaca kale waxaa iyaguna shir jaraa-id qabtay guddiga beelaha gadarbuusi oo maanta sheegay inay garab taagan yihiin xukuumadda jamhuuriyadda somalilan oo markaasi ay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin dagaalada xooggan ee turkiga iyo jabuuti ay isleeyihiin ka bilaada galbeedka somalilan oo hadda socdana si wada jir ah looga qaybgalayo sidii looga hortagi lahaa qodobada iyo qodobo kale ayaan kusoo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada waa hagaagaan ku bilowna barnaamijkee wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaadhay galbeedka jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan gobolka salal ayaa la sheegayaa in uu dagaal halkaasi ka dhacay maanta galabtii halkaasi oo deegaanka xariirad ilaa cabdiqaadir ay markaasi xabaddu ka socotay deegaanka buuraleyda ayaa hadda la sheegayaa in kooxaha argagixisada ah ee markaasi laga keenay xamar iyo markaa kooxo kale iyagoo argagixisa ninka jabuuti horjoogaha ka ah ee ina geele uu markaasi halkaa keenay iyo turkiga oo waxoogaa huba markaasi halkaa ugu keenay kooxahaasi canaasiirta ee arbushka ka waday toddobaadyadii lasoo dhaafay deegaankaasi cabdiqaadir ilaa iyo maka xariirad ayaa waxaa la sheegayaa in halkaasi weerar xooggan ay soo qaadeen ciidamada madaniga ah ee beelaha gadarbuusi ee halkaasi jooga ayaana jilibka u aastay oo markaa kooxahaasi dib u celiyey waxaa sida oo kale ka qayb galay ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan oo markaa kooxaha canaasiirta argagixisada ah ee markaa
shabaab iyo ictisaam iyo moogta wixii qaab qabiileed ama hayb ciise lagu soo xulay kuwaasoo laga keenay gudaha Itoobiya kuwii canfartuba deegaankooda ka qaadatay ee candhuufi iyo cadheetiya garba ciise iyagoo soo nool oo soo jeeda oo indhoogu shan yahay lagala wareegay ayaa hadda u soo markaasi weyse biyeystay oo lagu yidhi dhulka Somaliland baad qabsan karaysaan waxaa weliba taasi ka daran kuwa qaar iyaguna ciidamada Jabuuti oo direyska laga saaray aduu jaabada kooxaha argagixisada ayaa maalmihii ugu dambeeyay halkaasi ka waday arbushaad iyo markaa in la yiraahdo Somaliland dagaal baa ka socda taasi oo badi hadda markaasi ay ka qayb galayeen saxaafadda wadamada Carabta ha ugu darnaadaan kuwa Al Jazeera oo markaa ah iyadu taageerta kooxaha argagixisada ku caan baxday haddaba si kasta ha ahaatee dagaalkii maanta dhacay ayaa la sheegayaa wax khasaaro soo gaaray ciidanka qaranka ma jirto iyo ciidamada beelaha Gadarbuusiba laakiin kooxii argagixisada ayaa la sheegay halka in dib looga saaray oo laga riixay sida oo kale waxaa hadda iyaguna shir jiraayid qabtay maanta wasiirada ugu markaasi tunka roon golaha wasiirada madaxweyne Cabdiraxmaan Cirre uu soo dhisay wasiiradaasi oo markaa ay ugu bowdheeraayeen wasiirka madaxtooyada wasiirka arrimaha dibadda wasiirka arrimaha gudaha laakiinse wasiirkii diinta iyo awqaafta oo isna meesha inuu joogo ahayd oo iminka kaarka kaliya ee Soomaaliland lagula dagaalamayaa waa kaarka diinta oo niman xamarka amar qaata iyo Nairobi oo moogtay ninka sheekha sheegtay ee moogtay ogaadeen sheekh Umar la yiraahdo iyo Fahad Yaasin ay timirta u soo qoraan oo yacni loo yahay tanaagta moogtay ama karatoonta timirta ee Sacuudiga laga soo sadaqa qaato iyo qadar iyagana bad laga siiyo ayaa lagu hanjabay in laga jarayo timirta haddii kale aqoonsiga Somaliland inay ka hor yimaadaan hebelow hadal baa lagu yidhi Mustafa hadal waa kii soo booday ee markaa aqoonsiga Somaliland ka hor yimid mid kalena uu iska soo daba cayntaariyay markii hore ninka Shabcaan la yiraahdo wuxuu ahaa mid taageeray aqoonsiga Somaliland laakiin markuu arkay Mustafa hadlay uu ka daba hadlay isaguna qaar kale haddaba hanqalka la soo kacay oo Jimcahan doonaya in dagaal masaajidada laga soo qaadayo ayaa la sii qorsheeyay marka waxay sheegayaan dadka u kuurkala siyaasaddu sababta ay wasiiradani u hadleen maanta inay tahay digniin ku socota kuwa hanqalka la soo kacay ee isla timirta Fahad Yaasin ka jaraya haddii kale de Somaliland dagaal la gala ayaa lagu soo khasbay ina geelunba had iyo jeer ganacsatada dabada ka istaagi jiray oo de moogtay nimanka ganacsatada Somaliland iyo Djibouti ka dhaxeeya loo yahay hebel iyo hebel loo yaqaano ugu bowdheer de moogtay ganacsatada ayuu oran jiray xoolaha idinka yaala Djibouti baan idinka xidhay haddii kale ka hor yimaada muuse tabtiiba imakana nimankii culimada sheeganayay in rag badan u dhaqaanay diinta wax ka garanayaan baa Fahad Yaasin oo moogtay ku caan baxay inuu dumarka ku laayo Muqdisho ayaa ku yiri tanaagtii timirta haydan qadar ka soo qaadaya sadaqada hayd baa la idinka jarayaaye bakhaarada ku iibin jirteen iyo gunadii yareed siinayay haddii kale ka hor yimaada aqoonsiga Somaliland Mustafa iyo ninka Shabcaan idhaahdo way soo boodeen qaar kale iyaguna imika kiyuu ku soo jiray weerar masaajidada ka yimaada la qorsheeyay ayaa hadda ay ka hortageen baa la yidhi golaha wasiiradu si kasta ha ahaatee waxa amar ay soo saartay xukuumadda Somaliland lagu sheegay Sheekh Walaal Shariif ciddii tushuush ku furta aqoonsiga Somaliland Israa'iil siisay inaan loo dul qaadan doonin oo birta la dhaafin doono waxaana tan la sheegay in xiriirka Somaliland iyo Israa'iil ee hadda markaasi sii xoogaysanaya ay tahay kaadh uu la soo baxay Xasan Guurguurte iyo markaasi ina geelle moogtay caloosh oo soo moogtay maamuday weerarkan dhinaca diinta iyo warbaahinta lagaga hortagay aqoonsiga Somaliland in dadkeedana inteeda badan waa cilmi dhagool oo culimada aad bay u aaminsanayeen laakiin ma oga in 20 sano ugu dambeeyay xagga culimada la iska soo maray oo ka isqarxinayaaba uu waa shahaadanaya ka dadka muslimiinta ah intuu bam soo qaato ku dhax qarxayaaba laynaya kumanaanka kun kaasabada nabiga wuxuu noo sheegay 73 firqadood bay kala baxaysaa buu ummadaydu oo qiyaabuu soo dhow yahay 73 ka midun ba jannada galaysa 27 ka kulba gadhka kula soo baxaya kuba filka ku matalay firqadood kulligood naartay galayaan buu firqada saxdeena dee waxa weeyaan tii hore ay naqaanay ee moogtay uu yeesheen kulli diinta lagu soo gaarsiiyay qaadiriyada waxaan kale waxa weeyaan kulli waa beenaalayaal barnaamijka